section 5.2 waxaan isla fiirin doonaa email structure. Email marka la rabo in la diro structurekiisu siduu u yaalaa skeleton. Okay, bal aan isla fiirino. Waxaan ku bilaabi doonaa just compose email ayaan soo dhahnay. Screenshot aan kusoo qaadna markaa from qofka diraayo ayaa markasta soo baxaysa. Kan adiga waxba ma ka samayn kartid. Haddii lacalla emailo badan meesha ay kugu xiran yihiin, maybe ina emails ka bedeli karto laga yaabaa. 2 meeshaan waxaa gelinaysaa qofka aad rabtid inaad u dirtid emailka. CC Soomaalida waxay isticmaalaan warqadaha dowladda ka soo baxaya hadda aragtaan oo kale og ay isticmaalaan. Og waxaa la ogeysiinayaa oo kale manaha warbixintan hebel loo diray og, laakiin og waxaa la ogeysiiyay waaye. CC la siiyaa maqlaysaa. Carbon copy ama laga soo gaabiyaa. Okay, any other people who would benefit from the email. Qof walba ay qusayso waa inaad copy ka siisaa. Tusaale ahaan ninka oo IT-da fadhiyo adoo boss ah ayaa waxaa leedahay fadlan soo post gareeya meetingkii shalay dhacay waxaabii ka soo baxay sawiradii soo dhiga. Waxaana ii sheeg CC ka siinaysaa qofkaas ka sarreeya qolada page gacanta ku hayso kulligood waa ogeysiinaysaa maadaama shaqadaas ay xiriir la leeyihiin. In case haddii qofkaasi uu ka jawaabi waayo dadkaas oo dhan copy haystaan way wada arkayaan markaas. BCC mid la jiro blind courtesy copy loo yaqaan. Blind sida magaca ugu horeeya ka dareemaysaan blind like waa blind waa like waa si indha la'aan ah waa qaris waa midaan markaa. Same as CC asina copy waayo qofaasin copy laga siinayaa. Only no one can see this address except you. Adiga bisa og. Dadka copy-ga la siiyay iyo qofka main-ka ah ee loo diray ma arki karaan qofkaasi. So in this case marmarka qaar waxaa la sameeyaa oo kale qof is leedahay shaqada maalin kasta uu kugu inkaraa oo kale shaqada si fiican ma qabsanayo ayaa marqaati waxaa uga dhigi kartaa booskiisa ugu sarreeya. So warbixinta u diraysaa booskan waxaa siinaysaa BCC blind courtesy copy siinaysaa. Hadhow marka ma dhigi karo aniga shaqada ma la dirin iyo maalinta la dir maalinkaas eedi ma dhigi karo. So wax walba marqaati leeyihiin then ayadana marmarka qaar waa la isticmaalaa. Laakiin ma ku qasbanid inaad isticmaasho mar walba CC iyo BCC unless inay muhiim ku yihiin marmarka qaar. Halkani waxaan ku haysanaa subject line-ka ayaga faahfaahsan oo arki doonaa oo ah meesha cinwaanka qofka usoo muuqan doono marka inbox-ka intuusan furin ka horba cinwaanka usoo muuqan doono. Okay, meesha waxaan ku haysanaa salutations salaantu waay hi hello dear waa in lagu bilaabo mar walba. Then body-ga warbixinta aad rabtid inta ku sheeg I hope all is well oo kale sheekadaada sheeg markaa. Ugu dambeyn sheekada markay dhammaato emailada badankood qaybta ugu dambeysa waxay leeyihiin wax loo yaqaano email signature. Waxa la email signature oo ah signature mar walba la socda emailkaaga sida magacaaga, telefoonkaaga, titlekaaga, waxyaabahaas oo kale ayadana markasta muhiim waaye. Okay, marka emailka marka qaab noocaas oo kale ayuu u badan yahay mar walba adigana kugu xiran tahay qaabka oo organize gareed. Okay, markaan waxaan soo fiirin doonaa dhammaantood qodobada aan ka sheekeynay in details one by one. Waxaan ku bilaabi doonaa wax loo yaqaano subject line. Subject line waa cinwaanka ugu horeeya qofka mobilkiisa ama computerkiisa markuu soo furo waxaa usoo dhacaya notifications inbox-ka waxaa ku yaala email. So emailkaas muxuu quseeyaa? Waxa uu quseeyo meesha uu ka arki lahaa laga rabaa meeshaas markaas. So subject line should be kept short. You have to keep it short. Wax yaris ka dhig 6 to 8 words ha ka badan. Sheekada sheegaysa fiiri ha badin markaa. Keep it clear and include any actions like urgent action by. Haddii lacala qofkan jawaab aad kartid waxaa leesaa ereyas waa in laga dareemaa. Please reply oo kale. Urgent call oo kale. Waxyaabahaas in laga dareemaa rabaa. Show benefit to the reader. Sababta dadka qaar maalinkii waxaa usoo dhaco 10 ilaa 20 email usoo dhacdo. So emailkaaga inuu muhiim yahay uusan dhexgelin kuwa kale waxaa asal u ah waxaa go'aamin karo the subject line. Subject line hadaa ka tagtid ka hor
qofkan wuxuu u qaadanayaa waxyaabay xayeysiiska newsletterska usoo dhaca maalin walba ayuu u qaadan karaa because qofkan maalin walba wuxuu subscribe ku sameeyaa email fara badan website fara badan oo ku sameeyaa marka kuwaas u qaadan doonaa marka kuwaas si uusan ugu qaadan waa inaa magac fiican u bixisaa. Let's see these examples. magacyada oo fiican oo qofka inuu akhriyo oo ku qasbayo waxaa kamid attentionki soo jiidan karo kan oo kale. Submit your assignment by Friday. Let's say galaaska macalinka emailin dan oo haya so wuu soo qabtay hal mar wuxuu idin soo diray fariin kadib wuxuu idin soo raacsiiyay submit your assignment by Friday. Assignment-tigina Friday kusoo gudbiyay. Register now for the free webinar. Let's say jaamacadda waxay idin soo dirtay webinar seminar online ku baxaya webinar Allah. So webinarkaas iska diiwaan geli si free ah. So fursad waa marka adiga waa ku dhafanaysaa horta waxaa leedahay warni webinarkan wuxuu ku saabsan yahay yaa bixinayo goor mu dhacaya then hadaa xiisaynaysa marka waa inaad ku dhafataa. Approve the budget proposal now. Like shaqada dhexdeeda waay budget soo approve gareey soo fiiri then soo finalize gareey soo dir. Confirm your attendance by Monday. Fadlan attendance inay imaanaysa noo soo xaqiiji. You see, download your course material here. Let's say macalinka wuxuu idin soo diray slides, books and so on. So course material aan isku dhaha xasadan. Ayadana sidoo kale join our meeting at and so on. So waxyaabahaas dhan marka waxay tusaale u yihiin subject line-ka ugu macquulsan sidoo noqon karo. Marka always ka fakir shaqada qabanaysa fiiri cinwaan yar oo ka tarjumayo waa inaad u samayn kartaa. Next waxaan ugu xigi jiray wax loo yaqaano greetings. Greetingska business letterskan hore u soo baranay qaabka qofka loo salaamo. It depends. Marka qaab badan jira qofka loo salaami karo sida inaad dhahdid dear qofka ma sheegtid dear Ahmed oo kale dear Aisha oo kale. Haddii informal iska tahay qofkan aan saaxiib tihiin colleagues asxaab hore iska tihiin waxaa ku bilaabi kartaa hi Ali, hi Aisha oo kale, hello Ali, hello Aisha and so on. haddii dadka ay badan yihiin oo kale tusaalahan ardayda galaaska dhan loo wada diray fariin marka maybe inaad dhihi karto hi all ama hi teams oo kale waxyaabahaas oo kale. haddii qofka magaciisa exactly aadan aqoonin wiil gabar wuxuu yahay maxaan dhihi jirnay dear sir/madam oo kale. haddii company ay tahay ka waran kaas waa qof shakhsi ah. hadduu lacala qofkan company yahay dear job title-kiisa sheeg tusaale waxaa dhahaysaa dear HR manager, dear finance director, dear dean of the faculty, you see, dear the minister of education, okay. Dear company name kuna sheegi kartaa kaliya waxaa dhihi kartaa dear Salam Bank, dear Dahabshil Bank oo kale, dear Stalmi Ishaq. waxaa kaloo u dhigma sometimes greetings in laska dhoo kale to whom it may concern oo kale. Dear valued customer, customer keena qaaliga iska soo dhahayaan because magacaada exactly ma sheegin so customers kana loo diray marka customer keena qaaliga ay kugu salaamaan marka adiga marka waxaad dareemaysaa in adiga lagu talagalay. So the greetings are very important. Opening line, we are not robot anaga nuxurkeen hore ma ka galeyno marka qofka at least xogeer ku bilaw opening waxaa rajaynaa in caafimaad qabtid sida anaga aan sameynaba marka qof wacdid hadafkaaga hore marka abaaraysid waxaa iska wareysanaysaa xaaladda ka waran waxaa rajaynaa caafimaad qabtid then hawshaada gal marka ereyada marka openingka aad u fara badan yihiin adiga marka mid kasta aad is leedahay aad ku anfacaya maalinkaas waa inaad dooran kartaa sida I hope you are well, I hope you had a great weekend. kasoo qaad isbuuc maalinta ugu koowaad aan soo laaban waayo let's say anaga Soomaaliya kale subax sabti ah email diraysaa qofkaas marka waxaa u rajaynaysaa inuu weekend fiican soo qaatay oo shala soo baashaalay oo waqti fiican soo qaatay. So goorma ku fiican tahay kan oo kale waa marka the first day of the week shaqada marka lagu soo laabto I hope you had a great weekend. kasoo qaad emailkan wuxuu aad ula xiriiraa email kulan shala wada qaadateen oo kale. It was great meeting you at, you see, runtii kulankeeni hore aad ayaan ugu faraxsanaa aan wada qaadanay kadib gal marka nuxurkaaga maanta markaas. It was great meeting you at Somali Development Dialogue. It was great talking with you this morning. kasoo qaad saaka kulanteen caawa dir rabtaa email runtii kulankeeni saaka aan qaadanay aad u fiicnay. Thanks for the update. Let's say qofkani update kusoo siiyay email oo dir rabtaa
salaan, thanks for the update dheh, waa mahadsan tahay update-ka ay soo siisay. Thanks for your quick response. Salaan qofkani jawaabta waxaa isdhahaysa 2 beri kadib soo jawaabo, laakiin isla markiiba asagoo computerka fadhiyo ayay u dhacday, then uu kusoo jawaabay. Marka u mahad celi, thanks for your quick response. Marka waxyaabahaasna waxaa lagu magacaabaa opening line. So mar kasta muhiim waaye emailkaada intaadan gudaha u gelin salaanta kadib qofka wareysa halkiisa opening line u sameey, kadib gal marka your body of the emailkaaga nuxurkiisa inta gal adigoo ku bilaabaya ereyada noocan oo kale. The reason for writing, sababta emailkana u diraysa ayaa badanaa la sheegaa marka. I am writing with regards to emailkani uu ku saabsan yahay waxaas. I am writing with regard to the next week's board meeting oo ku saabsan yahay. It means board meeting ayaa jira next week, marka laga soo qayb galo, hala soo diyaarsado and so on. I am writing to inform you that I am available on the dates requested. Waxaan ku cadeynayaa inaan diyaar ahay maalmaha iga codsatay oo kale. I am writing to update you on, you see, marka waxyaabahaas dhan waxay cadeynayaan in qofka bodigiisa nuxurkiisa markaan ka hadlayaa. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa emailada intada badan hadiiba attachment ay wataan. Tusaale ahaan qodobaa ku lifaaqday, kasoo qaad qofaa waxa u dirtay buug, marka waa inaad dhihi kartaa waxaan rajaynaya caafimaad qabtid, halkan waxaan kugu soo gudbinayaa course materialkiina. Course materialka wuxuu ku lifaaqan yahay qaybta hoose, marka waa inaad dhihi karta attachment like muhiim ah marka. So files sent with an email, sida document, image, PDF and so on. It provide extra information for the recipient. Qofka warbixinta helaya ayay information dheeraad u tahay. Marka adiga xasuusi waxaa dhahdaa fadlan attachmentiga hoose ku dhufo waana dhihi kartaa qofkaas. It can be downloaded and viewed. So qofka asagoo degsan ayuu meesha ku fiirin karaa ama hadduu rabo degsan karaa markaa. Example, sidee qofku dhihi kartaa fadlan warbixinta aan kusoo diray waxaa la socdo attachment, sidee u dhihi kartaa? There are a lot of ways a jira marka. Midka aad jeceshahay ka qaadan kartaa. Daarta u kala bedeli kartaa maalin dhowr beri kadib. Sida please find attached my passport and my certificates oo kale tusaalahan. I have attached my passport and my certificates. Waxaas ma dhihi kartaa. I am sending you the attachment of my passport and my certificates. Please kindly see the attached my passport and my certificates. The following documents are attached to this email. waxyaabahaas dhan marka muhiim ah. Hadiiba emailkaaga uu wato attachment hadduu wato waa inaa hore ka raacaysaa markaas. Closing line. Emailka markasta aad gabagabeynaysid waa in lagu gabagabeeyaa mac salaameys camal waaye. Okay, waxaan ku rajaynayaa khayr badan. Waxaan rajaynayaa inay iisoo jawaabi doontid waxyaabahaas kale. So make it clear what would you like the recipient to do. Haddii jawaab aad ka sugaysid waa in lagaa dareemaa hayibal jawaaban kaa sugaya adigoo mahadsan dheh. Okay. Haddii aad ka sugaysid inuu isdiiwaan geliya haya fadlan si qurux badan igu soo jawaab. Ereyada noocaas oo kale oo qofka kusoo gabagabeynaya. Sida I look forward to hearing your thoughts oo kale. Any assistance you can give me in this matter is much appreciated. Wax walba oo noocaas horumarin sameynaya waa kaa filaya. Please let me know if you require any further information. Haddii lacala wax iga baahan tahay taa ii sheeg, fadlan isoo ogeysii. Thanks for taking the time to read this email. Because waxaa ogtahay qofka inuu emailkaada aqriyay, marka isaga mahad celi, waa ku mahadsantay emailkayga maadaama aqrisay dheh. Have a great weekend. Have a lovely weekend. Hope to see you soon. So qofkan waa kulmi rabtaan, marka waa inaad dhahdaa hope to see you soon. Signing of email. Emailada marka la rabo in lagu sameeyo sign, marka lasoo gabagabeynayo waxaa badanaa lagu soo gabagabeeyaa ereyo qaan ah aan hore usoo aragnay. Use professional closing. Haddii waxaan professional yihiin aa u diraysid bangiyo, isbitaallo, jaamacado, institution waaweyn oo xushmada in ka dhexeeyaan. Waxaa dhehaysaa kuwaas oo kale best regards oo kale. Ama thank you oo dhehaysaa magacaada ka bacdi ku xijinaysaa. For more casual emails, asxaabtaada marka ismac salaamaynaysaan emailkaas waxaa kusoo gabagabeyn kartaa best wishes oo kale. Cheers oo kale. Take care. Waxyaabahaasna waa dadka oo asxaabta isfahansan ay isku dari karaan.
ama dadka wada shaqeeyo shaqada ka dhexeyso. For more formal emails, emailada more formalka kuwana marka kana zaid ah marka oo aad muhiim u ah. Yours sincerely qof aad qaali kuga ah ayaa warbixinta ku soo qoray. Yours faithfully labadanna waa soo baranay. Kan kale waxaan isticmaali jirnay qofka magaciisa markaan naqaano aan soo sheegnay. Yours faithfully waxaan sheegi jirnay qofka haddaan kusoo bilaawno magaciisa aan aqoonin sida dear sir/madam haddaan ku bilaawno kana aan samayn jirnay. Respectfully kan labada way qaadan karaan. So waxyaabahaas dhan marka waxyaabaha inta badan la rabo in lagu soo gabagabeeyo. Signature inta badan dadka professionalska emailadu ku samaystaan. Emailkaaga mar walba email aad diraysid qaybta dambe at the bottom of your email waxaa fiican in magacaaga oo saddexan ama magacaaga oo saddexan soo gaabadaaratid. Let's say Abdullahi Mahamoud oo soo gaabsaday. Title-kiiga maxaa waaye for example hadda content manager. Company-ga ka ahay dash oo kala samee calaamad noocaas kale. Active translations company-gaas oo kale waxaan ka ahay hadda content manager aan ka ah xogaha aan u habeeyaa. This is my phone, this is my email, this is our website, and this is my LinkedIn profile. So hadda kadib marka qofkii faahfaahin dheeraad rabto intay kasoo helaysaa telefoonkaaga iyo xogtaada oo dhan markaa. Intaanan u gudbin bal marka hore asla fiirino one sample email asla fiirino. Tusaale ahaan emailkaan joognaa markaan rabno qof u dirno sidaan kale ayaan samayn jirnay. Tusaale ahaan qofkaan rabno inaan u dirno ayaan sheegaynaa magaciisa. Let's say waxaan u diraynaa Ali let's say Ali at gmail.com ayaan u diraynaa at gmail.com. qofkaan rabno u dirno the main person arna emailkan u dirno qofkaas waaye. Haddii la alla u baahno inaan copy siino dad fara badan ka waran meeshaan ku taxi karnaa markaas. Okay, sidoo kale waxaan rabnaa inaan copy ka siino qofkaan oo kale. Okay, copy aan siino qofkaas oo kale. Sidoo kale qof kale manager at gmail.com. kulligood waxaan siinaa copy. It means fariinta Ali loo diray Hamdi iyo the manager dhammaantood way arkayaan. Okay, laakiin waxaan rabnaa hal qof inaan u qorino oo ayagana aysan arkeenin. BCC waxa waaye waa blind courtesy copy Allah. Qofkaas waa loo qarinayaa markaas. Se ugu qarinana asaga uu ogyahay qofkan. Tusaale ahaan oo kale boss oo kale ayaan rabnaa u dirno at gmail.com. booska asaga wuu arkayaa laakiin dadkan dhan ma arkayaan ayaga asaga lama oga boos laakiin asaga wax walba wuu og yahay. Okay, subject line waa kana waan dhahaynay ka dhig wax aad ii sheeg muhiim u ah. Tusaale qofaa waxaa ka rabtaa inuu ku caawiyo internet ku soo aragtay information ka rabtaa marka si qofkaas u furo looking for help caawinaad ayaan ka rabaa. Kadib warbixintaada meeshaan ku qor markaas iskaga bilaabma isa for example dear sir. Okay, I hope you are saasa ku wada marka email. The good thing email wali waxa waaye I hope marka bilaw tab aan dhahay ani ma qorin waxaas dhan because wuxuu leeyahay auto fill ama suggestion ayuu leeyahay waa u bilaabaysaa then asaga hore ka fahmaya. Aan ku celiyaa hadda fiiri I hope kan bilaababa you are doing asaas qor marka so tab taabanaysaa then oo ku dhameystira marka. Okay, kadib waxaan jirnay maxaa ka rabtaa qofkaas I am writing so waxyaalahaas aad qoraysaa then qaabkaas aad ku wadaysaa markaas ku wadid ugu dambeyn waxaan samaynaysaa haddii attachment ay jiraan inta ka soo qabanaysaa attachment then usoo dir fileka asigaha. Okay, waa kana fileka asiga waa inaad sugtaa wax yar intuu ka dhamaystirmayo. Dadka qaar way fududaanayaan way dirayaan then warbixinta ma jirto markaas. Okay, please maxaan dhihi jirnay maadaama ay jirto attachment please find the attached course material here for example qaabkaas oo kale. Okay, haddii fontiga aad rabtid wax ka badbadashid meeshaan bold ka dhig
ii sheeg kalarada daarta wax ka habeey and so on. So waxaas oo dhan waa waxyaabo aad samayn kartid. Fontigan haddiisan ku cajabin tan ka dhig, haddaysan ku sameynin and so on. So waxyaabahaas waad diri kartaa. Kadib ayaa laga rabaa inaa markaa maadaama uu dhamaystirmay waxaan dhihi karnaa markaa the send waan dhihi karnaa markaas. I hope inaad isla fahanay adigu ku abala garanay qodobadii dhammaan aan soo baran markaas.